Congratulations, we've only got 3 awards left. So our next award is the Arts and Entertainment Award, which is really special considering most of us were told to be doctors or engineers growing up. This is a fantastic award, and it's really nice now to see in our community how many people we have that are content creators on social media, including things like YouTube and TikTok. We have models, we have actors, we've got so many people that are succeeding in the arts and entertainment industry. And to present this next award, we've got Sagal Mohammed, who is the content editor at Soho House, so please give her a warm welcome to the stage. The time is now. Hi, assalamu alaikum everybody. Alaikum salam. It is my honor to present the Arts and Entertainment Award for the 2023 International Somali Awards. This outstanding individual has made significant contribution to the world of art and entertainment. This individual's talent has helped showcase the beauty and diversity of Somalia's art and entertainment scene. Through their work, they've inspired and touched the lives of countless people, both in Somalia and around the world. The nominees have demonstrated a willingness to take risks, because we all know that arts and entertainment isn't everybody parents' first choice for us. They've explored new ideas, pushed boundaries, and kind of set the precedent for what's possible within this realm for a lot of the new generation. They've brought joy, inspiration, and helped promote Somalia's rich cultural heritage to the world. Their achievements serve as a reminder of the power of the arts and entertainment scene and the importance that we all support and celebrate individuals who dedicate their lives to this. So with that being said, the nominees are... Sharma Boy, a renowned Somali rapper and songwriter, rose to fame for his insightful music that reflects the everyday experiences of the people of Somalia. He has since become a leading voice in the music industry, earning the distinction of being considered the most influential Somali artist of his generation. His music and journey is being followed internationally by the Somali diaspora. ASAD HAGIO, a popular YouTuber, overcame adversity after surviving a brutal attack by Al-Shabaab in his family's photography studio. Despite being paralyzed from the waist down, ASAD has achieved global success as an entertainer with over 1 million subscribers on YouTube. QEYSAR, a talented YouTuber and influencer, utilizes his camera to showcase the breathtaking beauty of East Africa. His travels throughout the Horn of Africa aim to challenge misconceptions and educate audiences through his entertaining and informative vlogs. QEYS's unique content inspires countless individuals to discover the hidden gems of the region. And the winner of this year's Arts and Entertainment Award is ASAD HAGIO. Yeah! Couldn't be here with us. Oh my God! Yes, man! Thank you, man. Thank you, man. Yes! We did it! Oh my God! International We Somali did it Awards. again. Sidoo kale And again. dhammaan Team 27 meel kasta adduunka ay ka joogaan. Waxaan aad iyo aad Love you ugu guys. in aan ka maqnaado caawa xafladan. Yes. Inaan imaado. Sababtoo ah waan jeclahay barnaamijyada International Somali Awards ay sanad walbo ay qabtaan. Aad iyo aad ugu xumahay inaan kasoo qayb gali waayo, laakiin waxaan dareemayaa caawa in aan joogo. Waxaan dareemayaa caawa in aan ka maqneen xafladan quruxda badan. Si walba ay ahaato, waxaa kaloo ku faraxsanahay in aan ka mid noqday 3 uu cad ee ku tartamayso Artist and Entertainment Award. Oh my God! qof walbo ee tartankan igu jiro waxa uu rajeen doonaa. Oh my God! kale waxa halkaan aan aad u mahad celinayaa asxaabta isoo codeysay ee heerkan tartanka soo hartay isoo gaarsiiyay. Dhammaantiin aad ay u mahadsantihiin. Waa ku mahadsantihiin sida qurux badan ee aad ii codeyseen. Let's go! Yes, man! We did it! Yeah, let's jump back. Waxay dhaysaa. Arkeen! No! Waa gudbi! Awaad
Asad wal we've got gudbi. one of our No way. of the night. The Oh special my recognition award. God. This award is presented to an individual or an organization who has demonstrated exceptional leadership, innovation. Wow, this is another hit or another level or another. Oh my God, dareenkay ma la soo koobi karo. Aad iyo aad ayaan وحماسanahay haniyaabina farxadda ayaa ii tan badatay yaa horta waxaan aad ugu ximaay inaan caawa xafladaas aan ka maqnaado oo awaadigaas gacanta aan ku dhigo fasaatee waa ii suurtagal weysay dib ma lahan almuhim markii intaas laga soo tago waxaan halkaan aad iyo aad aan ugu mahad celinayaa asxaabta u sabab ahayd inaan awaadigaas aan helo asxaabta u sabab ahayd in aan noqdo number 1 wow sidoo kale waxaa halkaan aan ka salaamaa QEYSAR iyo SHARMA boy kuwaas oo igula jiray tartanka entertainment award idinkoo guuleystay camal ay la mid tahay of course waan dareemayaa sababtoo ah haddii QEYSAR uu guuleysan lahaa ama SHARMA boy uu guuleysan lahaa waxay la mid ah leeyahay inaan guuleysto oo kale almuhim guush hal qof ay raacday qofkaasna waa walaalkiina waa aniga oh my god team 27 meel kasta adduunka ka joogtiin aad iyo aad ayaan idin mahad celinayaa million times dhammaan intii codeysay dhammaan intii u aragtay inaan biladan aan u qalmo waad mahadsantiin aniga aaminsanaa inaan biladaas aan u qalmo dadaalkay waa aragteen juhdiga aan ku noqday number 1 ee caawa awaadigaas aan ku guuleystay sababteed waa aragteen kulay dadaal aan xaggii ka imaaday waa ii sidoo kalena yani garab istaag idinka aad garab istaagneedeen oo aad igu taageerteen in aan hawshaas aan wado almuhim dhammaan intii soo codeysay iyo welibana waxaa halkaan aan ugu mahad celinayaa International Somali Awards ISA 23 oh my god dhammaan howlwadeenada iyo dhammaan gabadha bilada wadi sagal صح sagal yes sagal lagu magacaabay ala kulli xaal sidoo kale dhammaan inta ka soo qayb gashay iyo intii awaadigaas ii haayo dhamaantiina waad mahadsantiin walaalo ayaa meeshii joogo muhiim baan inaan aan joogo idinka ayaa ii joogay aad iyo aad ayaa mahadsantiin million times waad mahadsantiin waad mahadsantiin waad mahadsantiin oh my god I love you guys bye bye assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waadin salaamay dhammaan dadka sharafta leh ee kasoo qayb galay xafladda International Somali Awards sidoo kale waxaan halkaan ka salaamayaa dhammaan team 27 meel kasta adduunka ay ka joogaan waxaan aad iyo aad ugu xumaay in aan ka maqnaado caawa xafladan qorsheygu way ahayd inaan imaado sababtoo ah waan jeclahay barnaamijyada International Somali Awards ay sanad walba ay qabtaan aad iyo aad ugu xumaay in aan kasoo qayb gal waay laakiin waxaan dareemayaa caawa in aan joogo waxaan dareemayaa caawa in aan ka maqneen xafladan quruxda badan si walba ay ahaato waxa kale oo ku faraxsanahay in aan ka mid noqday saddex uu cad ay ku tartamayso Artist and Entertainment Award oh my god qof walba ee tartankan igula jiro waxa u rajeen doonaa guul sidoo kale waxa halkaan aan aad iyo aad u mahad celinayaa asxaabta isoo codeysay ee heerkan tartanka saddexda qof soo hartay isoo gaarsiiyay dhamaantiina aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin waa ku mahadsantihiin sida qurux badan ee aad iyo codeyseen